AI cusub oo ka sax ah dhakhaatiirta bini'aadamka ee ogaanshaha leukemiaMaxaa la sameeyey. Cilmi-baarayaal ka socda Ambrige, UL iyo Queen Mary University of London ayaa sameeyey nidaam cusub oo AAYah oo la yiraahdo CytoDiffusion.Waa nooc generative AI ah oo loo adeegsado in lagu falanqeeyo qaabka iyo dhismaha unugyada dhiigga si loo ogaado cudurrada dhiigga sida leukemia.Wuxuu leeyahay xasaasiyad sare iyo awood uu ku qiyaaso kalsoonidiisa, taas oo ka dhigaysa mid ka sax ah. Bini'aadamka, dhibaatada baaritaanka gacanta unugyada dhiigga waxay leeyihiin noocyo badan oo kala duwan, taasoo ka dhigaysa ogaanshahooda mid adag. Xitaa dhakhaatiirta khibradda leh mararka qaar way ku kala aragti duwanaan karaan. CytoDiffusion wuxuu si toos ah u falanqeeyaa unugyo dhiig ah oo ku jira smeer, wuxuuna soo jeedinayaa kiisaska aan caadiga ahayn si dhakhaatiirtu dib u eegaan. Sida loo tababaray, waxaa lagu tababaray in ka badan nus milyan sawirro dhiig ah oo laga ururiyey Addenbrooke's Hospital. Ambrige datasetkan waa kii ugu weynaa ee la heli karo. AI-gu wuxuu bartay kala duwanaanshaha unugyada caadiga ah iyo unugyada dhifka ah ee muujin kara cudur. Wuxuu si fiican ula qabsaday farqiga u dhexeeya isbitaallada, mikroskobiyada iyo hababka midabaynta. Natiijooyinka muhiimka ah CytoDiffusion wuxuu ogaaday unugyada aan caadiga ahayn ee la xiriira leukemia si ka sax ah kana xasaasi badan nidaamyada hore. Wuxuu xitaa ka fiicnaaday bini'aadamka marka la eego saxnaanta, gaar ahaan marka uu dareemo shaki. Wuxuu abuuri karaa sawirro synthetic ah oo aan la kala garan karin kuwa dhabta ah. Xitaa hematologist khibrad leh ma kala saari karin. Saamaynta caafimaadka CytoDiffusion ma beddelayo dhakhaatiirta, balse wuxuu noqonayaa kaaliye. Wuxuu si degdeg ah u kala saaraya kiisaska caadiga ah. Wuxuu soo jeedinayaa kiisaska khatarta leh si loo baaro. Tani waxay yarayn kartaa culayska shaqada dhakhaatiirta, waxayna kordhin kartaa saxnaanta ogaanshaha cudurrada dhiigga. Gunaanada CytoDiffusion waa tallaabo weyn oo ku wajahan AI caafimaad. Wuxuu muujinayaa sida generative AI ay u noqon karto qalab muhiim ah oo lagu hagaajinayo ogaanshaha cudurrada. Cilmi-baarayaashu waxay rabaan in nidaamka loo tijaabiyo dad kala duwan si loo hubiyo cadaalad iyo saxnaan. Natiijooyinka waxaa lagu daabacay Nature Machine Intelligente November 2025.